Bismillaahi Raxmaani Raxiim saaxiibayaal maanta waxaan baranaynaa sida aad u saxan lahayd saacadda iyo taariikhda kombiyuutarka haddii ay ka qaldan yihiin. Haddaba laba meel ayaad ka tegi kartaa saacadda kombiyuutarka iyo taariikhdiisa si aad u saxato. Meesha ugu horeyso waa halkan meeshan taska baarka la dhaho dhinaciisa midige oo ay ku qoran tahay taariikhda iyo saacaddaba ayaad right click dhahaysaa. Kadibna waxaad dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay adjust date and time. Halkaa waa ka tegi kartaa oo halkaas ku dhufatid halkaan ayuu ku keenayaa. Halkaan markuu keeno waxaad sii dooranaysaa meeshaan ay ku qoran tahay date time ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa. Halkaan markuu ku keeno halkaan ayaad mar kale ku dhufanaysaa additional date and time keenayaa. Meeshaan ay ku qoran tahay set the time and the date ayaa ku dhufanaysaa. Halkaan markuu keeno waxaa awood u leedahay inaad saacadda kombiyuutarka iyo taariikhdaba aad wax ka bedeshid. Change date and time hadaa ku dhufatid waxaa arkaysaa halkaan waxaa kugu qoran calendarki oo waxaa ka bedeleysaa taariikhdii baad ka bedeleysaa. Halkaana waa saacadda ayaa ku qoran saacadda ayaad ka bedeleysaa. Marka aniga hadda saacadda way ii saxan tahay ma doonayo inaan wax ka bedelo laakiin adiga haddaad rabto inaad wax ka bedesho saas oo kale aad dhahaysaa. Hadda 12:00 maqribnimo la marayaa. Haddaad wax ka bedesho markaad wax ka bedeshid kadib okay aad dhahaysaa ama apply meelahan kugu soo qori doonaa kadib sidaas ayay kugu bedelmi doontaa. Halkaas waa dhinaca taska baarka marka aad ka imaadid. Sidoo kale waxaa jirto inaad ka tegi kartid halka ay ku qoran tahay control panel. Haddii aad 2 jeer click siisid halkan ayaad imaanaysaa iyadana meesha ay ku qoran tahay clock and region. Haddii halkaa ku dhufatid waxaad ka saxan kartaa saacadda iyo taariikhda change date iyo meelahan ay ku qoran tahayna waxaad u sixi kartaa nooca aad u rabto. Inaad sanadka soo hormariso oo bishii saas aad dhigto iyo inaad bishii soo hormariso sanadkii ku xijiso yacni qaab qoraalka aad rabto inaad wax u qorato ayaad halkan ka bedeli. Aan isla aragno sidii hadaayeto kale haddana meeshii oo kale ku keenay waa set the time and the date. Haddii aad ku dhufatid halkan ayuu ku keenayaa change date and time ayaa dhahaysaa mar kale. Marka waa isla meeshii hadaayeto kale sidaas ayaad u bedelan kartaa. Dhinacan kale haddaan ku tuso waa qaab qoraalka aad rabto inaad u qoratid maxay ahayd sanadka iyo bisha iyo halkan waa format waa qaabka. Marka midaan u horeyso kale haddii aad rabto noocan aad dooran kartaa waa maalintii sanadkii waa maalintii bisha magaceeda sanadka saas aad u qori kartaa.